Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ardayda iyo dadka kale markaa ku xidhan baa channelkeena waxaad ku soo dhawaataan maanta muuqaal cusub. Muuqaalkeena cusub maanta wuxuu ka hadlayaa six ways to gain a knowledge. Waxaad ka hadlaa maanta lix way ama lix wado aad ku heli karayso aqoon ama cilmi aad ku heli karayso. Lixda wayga koobaad ama wadada koobaad waxay tahay reading books, inaanu buugaagta akhrino. Akhrinta buugaagta aad akhrinaysaa waxaad ka helaysaa aqoon aad u badan baad ka helaysaa. waayo akhrintu waa dhammaanteedba waxay nagu tahay waajib. waayo nabigana sallallahu alayhi wasallam baa waxa lagu yidhi iqra akhri, lama dhihin markaas ka tag ama bax lama dhihin ee waxa lagu yidhi iqra bismi rabbika alladii khalaq. marka iqra akhrintu marka waa amar weeye, waana nagu waajib weeye. taas marka laga imaado akhrintaada wax akhrinaysa ama bugaagtaada akhrinayso ama marka waxyaalaha lagu soo dhigay ama casharadaada aad akhrinaysaay wax badan baad ka faa'iidaysaa. qodobka labaad waxaa la idhahdaa taking courses, inaynu markaa koorsi qaadano. koorsada markaad qaadanaysaa waa inay koorsiya marka adiga khuseeya weyna yihiin oo yihiin kuwo markaad wax badan ka faa'iidayso, sida marka kuwaad caafimaad baranayso kuwaad caafimaad markaa ka faa'iidayso waa inay ahaadaan, kuwa markaa business dad baranayso kuwa business aad ka faa'iidayso waa inay markaa ahaadaan. waxaa la idhahdaa markaa qodobka saddexaad waxa weeye isaguna waa attending workshops, waa inaynu ka qayb galnaa meelaha aqoonta laisku weydaarsanayo sida markaa tababarada, waa inaynu ka qayb galnaa goobaha cilmiyada iyo laisku weydaarsanayo sida tababarada, waa inaynu ka qayb galnaa. qodobka afraad waxaa la idhahdaa seeking guidance from mentor, waa inaynu helnaa cid ina hagta oo qof ina haga waa inaynu helnaa. qofkaas markaa ina hagaya waa macalinkaaga markaa wax kuu dhigaya ama waa qof kastoo kaaga aqoon sarreeya waxa marka aad baranayso ama marka aad aqoonta aad ka raadinayso. qodobka shanaad waxaa la idhahdaa finding relevant sources, waa inaynu helaa ilo markaa khuseeya waxaan marka aad baranayso ama waxaan marka aad aqoonta ka raadinayso waa inaad heshaa ilo khuseeya. tusaale haddii maanta aan caafimaad kuu dhigayo oo caafimaad marka waxyaalaha caafimaadka marka waa inaad dub aad u baadhaa dub aad u raadisaa, se macquul maaha adigoo caafimaad markaa baranaya inaad markaa business aad raadiso. taasa markaa waa taa. qodobka ugu dambeeya markaa lixaad waxa weeye accessing online courses, waa inaynu helnaa markaa online courses, waa inaynu helnaa online coursesku aad bay ku anfacayaan. waayo teknolojiyadda casriga ah wax walba waxay noo fududaysay inaynu ku heli karno gurigeena annagoo joogna, sida tababaradii inaad markiiba heli karayso. waxaa jirta tababaro ay bixiso WHO, hay-adda caafimaadka adduunka, tababaro ay bixisaa jira oo shahaadooyin free aad helayso ayaa jira. tababarada marka insha allah sidii aad u bubuuxin lahaydeen akoon aad ugu lahaan lahaydeen dhammaan marka insha allah anaa insha allah idinka caawin doona. commentiga ayaan markaa ka arki doona insha allah. qof kastoo u baahan commentiga soo gala ha idhahdo marka waxaan doonaya naga caawiso, marka commentiga ha soo gala insha allah, muuqaalkana ha la gareeyo. taa marka laga yimaado online courseska insha allah aad bay muhiim u yihiin, waayo tababarada aad fara badan aad qaadatahay waxay markaa aad online weliba ka qaadato iyo courseska aad online ka qaadato waxay markaa kordhinayaan ama aad aqoontaadiba sii siyaadinayaan. oo qofkan kale markaa maanta aan online waxba ka baran se markaa sidan offline-ka wax ku baranaya ama jaamacadaha qabanayana waad ka markaa fursad sarraysa adigu. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.